I am called Ibrahim Malim Yusuf. I live in here. I am a Somali boy. I was born here October 25 in Hagadera refugee camp. I have never seen my beloved country, but I am a Somali refugee. Be a refugee is not my passion. waa mid ka mid ah ubadka qoyska macallin Maxamed Yuusuf Maxamed oo ah aabba Soomaaliyeed oo ku noolaa gudaha xeryaha Dadaab ku dhawaad 30 sano. aabahan oo loo garan og yahay macallimu ayaa ah shakhsi si weyn looga yaqaan gudaha xeryaha Dadaab wuxuuna nolosha qoyskiisa oo ka kooban 326 carruur oo ay xaasaskaasi dhaleen ku maareeya xirfadiisa aqooneed oo ah macallinimo waana mid ay arday badani ka aflaxeen balse haatan kuwani waa qaar ka mid ah ubadkiisa oo uu wax ku barahayo gurigiisa. S is for snack. S is for snack. T is for teacher. T is for teacher. T is for teacher. T is for teacher. U is for umbrella. U is for umbrella. U is for umbrella. U is for umbrella. V is for van. V is for van. W is for watch. W is for watch. X is for X-ray. X is for X-ray. Y is for yard. Y is for yard. Z is for zebra. Z is for zebra. xirfadiisa aqooneed ee macallinimo kaliya kuma koobna wax soo saarkiisa ee waa mid wajaha marxalad walba oo ay noloshu ku riixdo wuxuuna tusaale fiican u yahay bulshada kuwooda wax bartay oo aanu leelyanayn inay qabtaan shaqooyinka dhulxaaqa wuxuu ka warbixinayaa waayihiisii nololeed ee ku soo maray gudaha xeryaha Dadaab. magaciiga waa Macallim Yuusuf Maxamed ayaa la idhaha xeradan qaxootiga xagar dheer ayaan ku noolahay oo ku soo noolaa laga soo bilaabo 92 ilaa iyo hadda ayaan ku noolahay ilaah baa mahad leh. xerada xagar dheer waa meel aad u kulul cimiladeeda waa hay way kor bay jirtaa cimiladeeda aad bay u kulushahay haddee mani aadi kartid meelaha duurka iyo waxaan meelihii waa iska barakaysan tahay habeenkiina ma socon kartid hadduu dhib ku gaarin haddee waxaa tahay Allahu naxariisto baa loo dhigay dhibkaas adiga buu ku joogaa waay. waxaan wax ka weydiiyay farqiga u dhaxeeya xilligii uu soo qaxooti galay iyo haatan oo uu yahay aabba dhalay 26 carruur iyo sidoo kale mustaqbalka dambe ee qoysaskiisa. maalintan soo galayay oo xeryahan soo galayay qalinkan hadda gacanta aan ku haayo meeshu wax ka qoray baan garan jiray ma ogi wax aan garanay ma jiran haddana alxamdulillah nin waxaan dhahay macallin oo ilmihiisa wax baranayo oo asagina noloshiisa soo ceshanayo ayaan ahay mustaqbal madow baa ii muuqda mugdi hortayda wax baa taagan haddii maadaama 30 sano meesha aan ku noolahay carruurtaydii dhowr iyo 20 ay tahay on inta ku wada noolnahay waa mustaqbalkayga aad baan ugu waswaasahayaa ilaa yacni adduunyada ay ii gurmadaan oo yacni wadankii hadda kuma noqon kari intana sidaan ay tahay ilmahaygii waa kan dhib baan ku qabnaa haddee ilaa wadan kale dib u dejin aan helo yacni sidaasba hortayda ay ku feedinto moogi hadda waxaan arkayaa mugdi ayaa hortayda ah. waxaa aad u adag in 326 carruur oo ku masruufo dakhli ka yar $50 ama 5,000 oo shilin hase ahaatee wuxuu u muuqdaa mid ku qanacsan nolosha qaxootinimo oo ay u dheer tahay duruufo ku gadaaman isaga iyo qoysaskiisa. waan baahanahay yaarkii baqti looma cuno aniga mushahar baan qaataa 3,000 ayaan qaataa xaasaskaas dhowr iyo 20 kaas canug 3,000 baa si u kala gaaranayaan ayaan u kala siyaa ma ogi haddee muslimiin baanu nahay annaga waa baahinahay baqti looma cuno miga allahna waaba ka xishoonaa basadeeda annaga ninkii wax noo garto nasiyo waan aragnaa laakiin haddii waxba aan noola siinin haddee ilaahay aan ku shukrinaa 10 shilin haddaan helno waa cunaa haddii kala qareerta iska karsanaa annaga. si kastaba ha ahaatee aabbahan ayaa tusaale wanaagsan oo ku dayasho mudan hase ahaatee waxaa muuqata in maareynta 326 carruur aysan fududayn marka la barbar dhigo dakhliga celcelis ahaan bishii soo galo oo ka yar $50 ama 5,000 oo shilin walow uusan codsanin in la soo caawiyo wuxuu mudan yahay in la caawiyo bishan barakaysan ee Ramadaan. Bashiir Gaxnuug RTN xeryaha Dadaab. Somtel isgaarsiin socdaasho satellite-ka lagu xiray sakanka go'een bay Somtel nasiisay kaalayo la saaxiib. Somtel waxay idin haysaa internet xawaare sare leh ku shubo $5 oo kaliya oo hel 6GB ku shubo $10 oo hel 13GB ku shubo $20 oo hel 28GB ku shubo $30
oo hel 40 GB adiga oo kaga shubanaya adeega casriga ah ee dahab sidoo kale ku raaxayso adeega muraad ku shubo $3 oo hel 1 daqiiqo oo ku hadala ku shubo $5 oo hel 2,000 oo daqiiqo wow kala xiriir faahfaahintaas dheeriyana nambarka macaamiisha ee shaashada kaaga muuqda 151 ama 152 ku raaxayso sim cardka Somtel mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac